maanta oo sanadkii 2024 uu yahay waxaanu nasiib wanaaga inaanu kala saxarayno memorandum of understanding dowladda federaalka Ethiopia saawtihiin ba qof waliba ama madaxweyne kasta wuxuu hirgeliyaa danta dadkiisa ra'iisul wasaaraha Ethiopia federaalka Ethiopia waxa uu naga codsaday inaynu wada galno understanding in ay badda ka helaan meel ay degaan ciidankoodu maadaama ay leeyihiin ciidankii mariinska ahaa meel ay degaan inaga Somalilandna waxaynu in badan Ethiopia iyo qaranka u diisanaynay in laynu aqoonsano qarannimadeena oo muddo badan maqlay waxaynu farxada oo naga mahadnaqayaa ra'iisul wasaaraha Ethiopia ba sidaanu ku heshiinay ay ku qoran halkan in anaguna aanu ogolaano 20 kilomitir badda iyaguna markaaba ay aqoonsadaan qaranka Soomaaliya dawladda horeysay ay noqon doonaan marka la saxaashiska